waxaan ahay naftii hore waxaan ahay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allahayo ku nabadgeli waxaan ahay naftii hore wasaaradda gaashaandhigga saaxiibadeenna kale turkiga saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed bahda saxaafadda iyo ciidanka maanta halkan muxuu ahay ii sheegay soo gaaray ee tababarka ugu soo xirmay dugsiga Isbaarta ee dalka Turkiga waxaan ku salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib runtii waxa aad iyo aad muxuu ahay ii sheegay farxad weyn noogu ah guud ahaanteen inaan maanta halkan ku soo dhaweyno groupkii labaad ee kamida ciidamada hadda ka imaanaya ka soo laabanaya dalka saaxiibada aan nahay ee Turkiga oo halka tababarkooda ugu soo gabagaboobay dufcooyinka kale oo dhimanna insha Allah taala aan rijay doono saacadaha soo socda ama waqtiyada soo socda inay soo gaari doonaan ma doonayo inaan hadal badan sii dhaho waxaan rabaa aad iyo aad inaan ugu mahad celiyo macallimiintii ciidamada gacanta ku haysay saraakiishii guud ahaan ciidanka Turkiga ee runtii muxuu ahay ii sheegay oo ugu horeeyay taliyaha xoogga iyo guud ahaan qaranka Turkiga oo ciidankan runtii quruxda badan ee horteena ka muuqday aad arkaysaan soo siiyay tababaro kala duwan in muddaana muxuu ahay ii sheegay halka lagu soo carbinayay aaminsanahana runtii inay muxuu ahay ii sheegay ay wax weyn ka bedeli doonaan howlgallada iyo muxuu ahay ii sheegay waajibaadka shaqo ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay muxuu ahay ii sheegay guud ahaan gobollada dalka ay ka fulinayaan gaar ahaan la dagaalanka ee muxuu ahay ii sheegay nimankan nabad iyo nolol diidka ah oo ummadda Soomaaliyeed u diida muxuu ahay isaga nasashadii idanka Ilaahay waxaan rajaynaa in muxuu ahay ii sheegay ummadda Soomaaliyeed ay u fi doonto mustaqbal wanaagsan nolol wanaagsan kanaan dul qaadi doono Ilaahay idankiis dhibaatooyinka iyo waxa heesta ciidanka maanta halkaan aad timideenna aad qayb weyn ka qaada doontaan waxaan leeyahay marka ku soo dhawaada dalkiina hooyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad soo qaadateen aqoon aad muxuu ahay ii sheegay ku caawi doontaan ama ku saacidi doontaan ummadda Soomaaliyeed ugana saari doontaan dhibaatooyinka iyo marxaladaha ay ku jiraan aad iyo aad u mahadsantihiin waqti kale wada hadli doona haddii Ilaahay yiraahdo haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka wasaaradda gaashaandhigga
mudan wasiir soo dhawow taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Madaxweyne Yuusuf Raage taliyaha Turksom saraakiisha kale military attachee-ga walaalaheena Turki ciidamada commandoska Gorgor oo hadda yimid qaybtii labaad oo kale qaybtooda ugu horeysay shalay aan soo dhaweynay maanta dafcadooda labaad aan soo dhaweynayna runtii dhammaantiina waa idin salaamaya waxaan ku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh taliyaha ayaa ka hadlay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay oo shalayna aan idin soo dhaweynay qayb idinkeeda ka mid ahaa maantana aan idin soo dhaweynaynaa si niyad-same leh runtii oo farxad ku jirto ayaan idin soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala waa daalantihiin waxaan rajaynaynaa insha allahu waxaan u imaanay inaan idin soo dhaweyno oo keliya ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay idinka dhigo kuwii anfaca dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda waajibaad cusub ayaa idin sugaayo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda ka hadlay waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan kuwii runtii dalkooda iyo dadkooda badbaadin lahaa annagana farxad weyn ayay noo tahay maanta inuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib u dhis ku jira oo sii dhismaya maanta inaan goobjoog u ahaano aad iyo aad ugu faraxsannahay runtii ummadda Soomaaliyeedna insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa ama ka codsanaynaa in ciidankooda garab istaagaan idinkana waxaa laydinka sugayaa waajibaad adag iyo shaqo adag iyo mas-uuliyad adag inaad gudan doontaan insha allahu tacaala soo dhowaada aad iyo aadaan u mahadsantihiin sida wanaagsan oo qiimaha iyo wadaniyadda leh dalkiina hooy aad ugu soo laabateen aad wax u soo barateen aad diyaarna u tihiin inaad naftiina iyo erdigiina sharafkiina aad u hibaysaan waa mahadsantihiin kun jeer ayaad mahadsantihiin soo dhowaada ayaa idin leenahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaana hay naftii hore waxaana hay naftii hore naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qaboowiyo nimcayo barwaaqiyo sabab lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarrada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel nidar baan hore u galay niyadaydu waa meel haddii